السلام عليكم. السلام عليكم. رجال سوني سلامة. مرتين شريف تلا. Our DPP, our governor, our deputy governor, our senator, our woman rep, our fellow, my colleagues, MPs, MCS, all protocols. Assalamu alaikum. Maanta waa maalin furaxe, waa maalin wanaagsan somo. Reegaaris aad baa u mahadsantihiin si aad u soo doorateen Governor Nadiif iyo Cabdi Dhaqane. aad baa u mahadsantihiin. midda labaad waxaan rabaa inaan nii mahad celiyo reegaaris dadkaa soo doorateen. haddii MPs aan ka bilaabo ilaa governaga iyo ilaa senataga waa dad isku xidhan, waa dad walaal ah, waa dad qawiil fiirinaynin oo inaan rabno inaan gaaris weji waan ka bedelno dhibaatada haasato. aniga inta yar aan la shaqaynay odayaasha oo muse Simba Honorable Ducaale iyo dadka kale oo la soo doortay waa dad fiican. maxaan iga ballan qaadaynaa anagoo leaders ah inaan si hoggaan fiican igu shaqeyna aanan ii shaqayn doono somo baahi badan baa jirtay, baahida waa la kasi, anagana diyaar baan u nahnaa. maxaan iga codsanaynaa reegaaris haddaad tihiin inaan noo soo ducaysiin, inaan garabkaana noqotiin somo. Nadiif maxaa u sheegi Honorable Nadiif iyo Cabdi Dhaqane anoo Cabdi Cali Cabdi iyo dadka walaalaha oo leaderska waan ii garab taaganahay sifo dhibaatada badan oo reegaaris waxaan ka bedelno somo. haddaan ka hadlo tii national aniga somi ogtiina party leader yo soma aadin Kenya Kwanza soma aadin. haddii aan dhahno wixii ka soo baxo nataka kuambia Wakenya wenzangu wote ile verdict itatoka Supreme Court. tunataka tukue, tunaomba Wakenya, sisi tunataka amani. ile mtu atasemwa tunasema tunafanya kazi na hiyo mtu, si ndio? kama ni Honorable William Samoei Ruto tunasema tunafanya kazi na yeye, si ndio? kama ni Raila Amolo Odinga tunasema tunafanya kazi na yeye, si ndio? lakini kwa sababu mimi nimetoka Kenya Kwanza, naomba William Samoei Ruto akuwe president elect, si ndio? So asanteni sana na Mungu awabariki.